مشرحين مدحوينا صوماليا قدومي هوري قلها الشعبك ادوينها شرفت له هالكي يسوي دمانتين وسلامتين لو ترين بانقبه ترين وامد فرحدت وناديات وقفر أحسنها هاي كوانك عدالة كسوب هاي محكمة عدالة ICJ oo kolkii hore inagu waxaynu raadinaynay oo gaarhi ma jirin badeena ayay ahayd inaan xaq u leenahay sidii loo sheegay wararkii tirada badnaa ee la sheegay inaan ku noqdo ma rabo laakiin maxkamadii ay cadaysay wixii aynu xaq u leenahay taasi kolka waa farxad ummadda Soomaaliyeed oo dhan meelay joogtaba u soo hoyatay waa guul la wada leeyahay ee ayna cid gaari lahayn ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxaysa tareenka kale qaba waxa weeye waxa ina saaran oo yaala chapterka 7 1947 ayaad moodaa halkaynu joognay inay taagan tahay oo ahayd waqti trustship Soomaaliya la gelinayo oo kolka ay isku haystaan dalal waaga adkaaday dagaalkii labaad ee adduunka iyo dawladda Talyaaniga oo halka gumaysanaysa mid walibana ay rabtay in trustship loo dhiibo hogaaminta Soomaaliya waxaan isleeyahay ama maanta u eg tahay iyada oo charterkaasi ina saaran yahay hadda aan ka maqlaayo idaacadaha AU-da oo leh halaydi iyo dalalka ama United Nations kuba ay leeyihiin masruufkada anaga ay siinayna oo macquul ma waxaan isleeyahay waxa laynoo wadaa trustship layna geliyo arrintaasina waxay ku timid oon qaba oon caawa hortiina ka leeyahay waa inaga liidnimadeena xumaanteena dadnimo la'aanteena 30 sano Soomaaliya waxay ku jirtaa oo aynu taaganahay inaynu intaa garan weyno midoobi weyno hal ahaan weyno dalkeeni iyo dadkeeni isu keeni weyno waxa weeye waxaan ka xumahay fanaaniinta Soomaaliyeed wax badan ayay noo sheegeen oo aynaan marna waxaad moodaa malaha ma dhageysano waa laynoo qaadayaa heesa heesihan haddaan maqlayn ee fiicnaa Soomaaliya Soomaaliba fanaaniintana waxaan leeyahay heesahaad qaadaysaan ee wadaniga ah noo sheega qofkii sameeyay waa xuquuq ummadda Soomaaliyeed leeyahay waa dinta aynu xusno cid walba wiilkayga Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan leeyahay wuxuu iga ahaanayaa raalli sababtoo waxaan kamid ahaa dadkii qabay inuu heshiis uuna shaqo ku lahayn galay oo dadka baarlamaankii sideedaan ku jirayna
waxaan qabaa hal shay oo fiican buu ahaa waxaanu samaynay go-aanka iyagu wuxuu ahaa magaca la siiyey waxaa la odhan jiray dhaxal dhowr oo micnihiisu ahaa bad berri iyo hawo ilaa dowlad soomaaliyeed oo shicibka soomaaliyeed doortay ka timaado saddexdaa cid ka hadli kartay ma jirto intaasoo horta ahaa go-aankii aanu gaadhnay waaga marka waxaan leeyahay icafi oo waxaan ma aha keligii waxay ahayd xubno badan baanu ahayd halkaa taagan soomaaliya waxaan leeyahay oon ku soo gebagabaynaya war halka aynu joogno aan aragno oo ha noqoto inaynu samayno horta aan dooranno madaxweyne arrintaasi dareenkiisu ay ku jirto ina hogaamiya isku keena isu keen oo aynaan noqonin tiradshibka laynala maagan yahay inaynu ka badbaadno arrintaasaan kusoo gebagabaynaya raalliga ahaada aada iyo aada raalliga ahaada